sharafta leh halkan fadhiya maanta kadib wada hadallo muddo socday ayaa khubarada maalgashiga iyo dhaqaalayahanada Soomaaliyeed iyo kuwa Turkiga oo kaalin weyn ka qaatay wada hadalladii socday waxay soo diyaariyeen soo bandhigeen heshiisyadaas laba wadan kala saxiixdeen heshiisyada oo kan ka mid yahay waa mid isu dheelitiran isla markaana tixgelinaya duruufaha gaarka ah ee haatan ku sugan tahay Soomaaliya iyo higsiga fog ee dalkan uu ka leeyahay inaan hadlo maalgashi toos ah ayaa wuxuu ka hadlayaa qodobada soo socda. kow, baaxadda heshiiska ayuu heshiiskan faahfaahinaya. labo, dhiirigelinta iyo ilaalinta xuquuqda maalgashiga iyo maalgashatada labada dal. saddex, sida loola dhaqmayo maalgashiga iyo maalgashatada. afar, soo-ista guud. shan, la wareegista ama qarmeynta maalgashiga iyo magdhowga ka dhalanaya. lix, magdhowga khasaaraha dadban. toddoba, dib u celinta iyo xawilista raasmaalka iyo faa'iidada maalgashiga. sideed, damaanadaha kala wareegsiga ee caymiska maalgashiga. sagaal, xalinta khilaafka ka dhasha maalgashiga. toban, xalinta khilaafka u dhexeeya dhinacyada heshiiskan. koob iyo toban, dhaqangelinta heshiiska iyo qodobo kala muhiim. mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh, heshiiskan waxaa ahmiyad gooni u leeyahay Soomaaliya maadaama loo baahan yahay in sare loo qaado maalgashiga tooska ah ee shisheeye iyo si loo xoojiyo dhaqaalaha Soomaaliya kadib marka la qaado xeerada cudurkan COVID-19 oo saameyn ballaaran ku yeeshay dhaqaalaha waddanka sida loo socotaan. labo, in maalgashi shisheeye xoogan loo helo Soomaaliya si loo fuliyo qorshaha maalinta qaranka sagaalaad ee dhowaan dhaqangalay. sidoo kale in la ballaariyo iskaashiga maalgashi ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo waddanka Turkiga ay ku aadan arrimo fara badan oo ka mid yihiin sida dhismaha, waxbarashada, caafimaadka, tiknoolajiyadda iyo farsamada gacanta si loogu abuuro ilaalinta Soomaaliyeed inay helaan shaqo oo la socotaan shaqo la'aanta baahsan ee waddankeena ka jirta. in laga faa'iidaysto khibradda dheer ee Turkiga ee ku aadan dhismaha dowladda, jaangoynta kobaca iyo horumarka dhaqaalaha. in la qoto dheereeyo lana xoojiyo xiriirka dhaqaale ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo waddanka Turkiga iyo in la ilaaliyo hantida iyo maalgashatada labada dal ama ha noqdaan dadka Turkida ee waddanka yimaada ama Soomaalida Turki degtay ay maalgashatay. mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh, aniga aan soo koobi karin ahmiyadda uu heshiiskan u leeyahay sare u qaadida iyo joogteynta horumarka dhaqaalaha dalka. waxaan ka codsanayaa xildhibaanada sharafta inay meel mareen heshiiskan isdhaafsiga, dhiirigelinta iyo dhowrista maalgashiga ee u dhexeeya Soomaaliya iyo waddanka walaalnahay Turkiga. waad mahadsantiin.